nabad iyo warsan saaxiibayaal oo walaalkiin Munasir Maxamed Cabdi waxa la socota xog waraysi waxaan rabaa inaan idin la wadaago arin aad iyo aad saameyn u leh walaalaheen Soomaaliyeed gabdhaha waliba arintaas oo ah dabcan in badan oo idin kamida baraha kale ee aan ku kulanno ee social media aan ahayn YouTube waxay kala socdeen isla xitaa YouTube uu kamid yahay waan soo gelinay gabar dhalinyaro ah Nawaal la yiraahdo oo shaqo inta raadisay dhowr goobood oo kala duwan tagtay lagu xijiyay inay ku bedelato shaqasi loo siiyo in lala yeesho galmo markii ay ka dhiidhisana dalabkeedii ama codsigeedii baa laalay tani markii shaqas aabaayna markii gabdho badan oo walaalaheena oo Soomaaliyeed oo victims ama dhibanayaal ayaa ila soo xiriiray hal fariin ay soo wakiisheen oo ah in inta kale ee dhibka noocaas uu ku dhacay laakiin la aamusan inay u gudbiyaan fariintan ayagu maadaama aysan maaragtay aqoon isku lahayn aniga naftiga aqoon aan idin lahayn dadka dhibka noocaas uu soo gaaray laakiin in badan oo kamid ah waxa la tuhmi karaa inay jiraan gabdho wax bartay shaqo la'aan ah hadda sababta shaqo la'aantu u yihiin ay tahay ma aragtay ayaga oo ka baaqsaday dalabaad shakhsiyaad aad u xun ay u gudbiyeen oo ah in shaqo la siiyo kadibna ayagana ay maaragtay afgartaan taas oo intan weys awgeedna ay doorteen inay aqoontii iyo wix ay barteen meel iska dhigaan shaqo la'aan noqdaan haddaba gabdhihii ila wadaagay sheekooyinkooda laba kamid ah idin soo gudbinaya horta codkooda waxa waa amnigooda u qarinay magacooda waa qarinaynaa ay si lamida ayagu mar walba diyaar u yihiin inay ka hadlaan laakiin waxa muhiim ah meesha bay'adda ay ku nool yihiin waa meesha ay joogaan xaqiiqatan waa meel riskigeeda leh halisna qofku uu kala kulmi karo mid kamid gabdhaha waxay sheegtay inay shaqo raadisay waxay baratay caafimaadka ayay dhameysay qof wax bartay waaye fariimaha oo aan hayo waxay igula wadaagtay in wasaaradda ay shaqo u doonatay wasaaradda markay shaqada u doonatay wasiirkii ay la kulantay wasiirkii la kulankoodii si fiican u dhacay loo sheegay in CV-yadeedii waxeedii laga gudoomay numberkin laga reebay la soo wici doono wixii update kadib nusu saac kama soo wareeganay tiri markii aan soo dhaqaaqay oo aan xaafadii imid waa li soo garaacay wasiirkii waayo hay ma sha Allah wasiir ay soo wacay wasiir hay salaamu alaykum hay maxaa jira shaqadii waa okay waa lagu qaatay shaqada waa imaanaysaa lacag intaas helaysaa laakiin inta shaqada soo galay horta bal aan mar is aragno okay dhahay markii gabar waxay dhahay oo hayaan dhahay is arag wasiirku waxaan u fasiranayaa dhahay inuu yahay is arag caadi isla markii la waxa uu soo dhacday dhahay baahida ah su'aashaas jawaab aan u baahnaa oo ah is arag halkee tusaale qofna waa inaan is aragnaa markuu ku dhaho halkee baa imaanaysa kaas wuxuu yiri dib ma xaafadda iigu imaaw halkaas aan ku kulmaynaa adiga وانا شكيسنا سو درينا قبل كل شيء قبل واحد مرتين واي علم الله واي sidoo kale tan oo dhibaatada noocan ay la kulmi karto mar walba aad qof markuu wax barto qofka kale aan wax baran waa ka fikir dheer marka inta ka fikiraysa halkaas oo ka fikira soo gabadhu waxba isku dhufsato xalaada maxaa marka xaafadaada maxaa ku soo beegay miyeenan ku kulmi karin meel kale sida goobta shaqada wasaaradda ma ku kulmi karnaa ma yoodan maxaa ka qaldanaaday qof wax bartay oo aqoon leh waa tahay wax fahmi kara maxaa ka qaldan gabadhu waxay tiri waxba igama qaldana maxaa aragtay maya isfahamka ani adigana isfahamno si gooni u sheekaysano oo ma aragtay isfahamno adigana ma aragtay shaqadaadii aad sida kusoo gasho aad ya markaas waxay tiri isfahamku waa okay wasiirkayga tahay sax hadda kusoo dhacdo yiri meeshii la rabay wasiirkaaga wax walba soo sameyn kartay maxaa kamid ah waxyaabaha ay tahay inaan wasiirkayga u sameeyo waa wasiirkaaga in afgartaa si adiga shaqadaada ma aragtay darajo fiican iyo heer sare uga gaartay wuxuu ku xijeenaa gabadha si uu shaqadaas u gasho inuu asaga iyo maaragtay ay qanciso gabadhii sidaas ay maaragtay shaqo la'aan ku noqotay waxay dhahday dismoraalka aan noqday ilaa hadda waa gabar kale goobo kale oo kala duwan oo maaragtay xafiisyo ah ayay iyaduna tagtay qaarkood jaamacaday tageen caqabada noocaas ay la kulmeen hadda fariinta ugu weyn maxay tahay ma rabo in sheekada dadka ay igu sheekeeyeen idin kugu ceeli laakiin hal fariin ay soo kashan oo ka muhiimsan waxa idin maaragtay hadal caadi ah dhibka ay ku dhaceen idin sheeg waxaa intiinan sharafta leh waxa la socoteen sheeko ah gabadha Nawaal gabadhaas Nawaal oo hadda hordhac idin kugu sheegay waxay ahayd gabar ka dhiidhisay dhibka la soo gaarsiiyay way ka damqatay waxay dhahday bataatan oo mana qaranay dhahday halkan ayay ma aragtay yuriyaashay isugu yartay way hadashay waxa xuquuqdeedii dhibkii la gaarsiiyay kama aysan gaman iyadoo waliba wax xeerisay oo aan dadkii wali farmuuqin laakiin la heli kara cadeemihii ay haddana sheegtay in dhib noocaas ay la kulantay markii ay diiday in waxaas ay ku bedelato sharafteeda ku bedelato shaqo maalmo ama bila ah ama waqtiga si socon doonto la ogeyn ama waxa laga heli doona ay wax yar iska yihiin ay diidayba gabi ahaanba shaqo la'aan ay noqotay
nasiib wanaag hadda shaqo yeeshay soo fariinta gabdhaha iga timid waxay tahay gabdhaha waxay soo jeediyeen ama soo wacay ila hadlay inay muhiim tahay in u baahan yihiin in gabdhaha dhibkaas noocaasa mar lay arkay waxbarashadoodii iyo cilmiga ay barteen maanta uga fadhiya guriga iskaga fadhiya ayagoo ma aragtay ka ordaya in sumcaddooda la xumeeyo ma dhib loogu geysto shaqo awgeed inay isku yimaadaan oo ay hal mar si muuqato u hadlaan sababtoo ayaga dhibkii kuma dhicin micnihii ayaga dhibkii maysan sameynin moogta waxaa la bakday ma jirto adiga arrintan waa ka biyo diiday waayo adiga ninkii dhagarta noocaasa rabay inuu ku dhacay aad ma aragtay uga baaqsanaysaa maaha macni inaad ka baaqsatid ma waa inaa intay isku imaantaan aad arrintaas ka hadashaan oo aad intay isku imaantaan dhahdaan waa hagaag waxaan u baahannahay in arrinta noocaana ka hadalno dhahno hebel iyo hebel iyo hebel nin hebel iyo hebel oo xafiis hebel fadhiya ayaa sidaas iyo sidaas maal heblaayim dhahay wuxuu nagu xujeeyey inaa ma shaqadaas uu siinaayo sidaas kulan weyn isku wallahi dhibkaas wuu xalsanaa xal fiican la hadda adiga haddaa qariso dhahdo saas u yeelay oo markii qof walaasha aragtay oo ku dhiiratay aragtay dhahayd anina waa la yeelay dhibkaas laakiin maxaan sameeyay dhahayd wax faa'iido ma soo kordhin dhibka waa qarsatay adiga markaa qarsatayna wuxuu ahaa waxaa raali ka noqotay in qof kale dhibaatadii lagu sii sameeyay ninkii waxa uu ogolaatay inuusan joojinin ficilka xuma laakiin haddii isla xisaabtan iyo maaragtay miiska la koro waxaa waa hubaal waxay tahay in maaragtay ninkaas laga gungaarayo waxaa waaye asaga cadaaladda u hor imaanaya waddanka kala dambeynaa ka jirta nidaam iyo dowladaa ka jirta in meel laga soo istaagayo mugta maxaa u qarsanaya marka adiga qofaan shalay adiga ku dhowrin oo sumcadaada ilaalinin waayo adiga aad tiisa u ilaalinin aduu rabay inuu maaragtay ku bahdilo kaaga faa'iidaysto baahidaada wuxuu qiimeyn waayey aqoontaada wuxuu qiimeyn waayey qofnimadaada wuxuu maaragtay qiimeyn waayey wax walba oo ay ahayd in la qiimeeyo so adiga marka maxaa ugu turay hebel waaye saan iyo sidaan taariikh qablaa markeed ayuu idhahay waxaan hadda shaqo la-aan u ahay anoo hebel ah dartiis wuu iga niyi jiray dhag caddeymihina waa kana waa lasoo qabanaa adaaga kan helaa maxkamadaa jirto kala dambeynaa jiro cadaaladaa jirto so maba ahanba inaad la walwasho maba ahanba haddaa qarsato waxaa ogolaatay adiga dhibkaas kugu dhacay ma aragtay shaqo la-aanta noqday gabar kaleeto ina iyadoo dhibkaas ku dhaco dadku isku maskax ma aha adiga waxaa laga yaabaa inta fikirtay aad dhahday shaqo la-aanta iron laakiin dad kale waxaa jira aan saas inta u fikirin ninkaas wuxuu raadinaya ku dhacay dabinta ninkaas uu maleeyahay ku dhacay soo hadhow adiga waa qaris walaashaa u qaris marka gabdhaha Soomaaliyeed fariinta gabadhahaas aan la hadlay ay soo wacay ii sheegeen ee aan dhammaan gabdhaha kaleetaba la wadaagay intaas waa macnaheedu ma ahan macnaha ma ahan inaan ma aragtay war aan jirin meesha idin la imaanayo waxa waaye xaqiiqo waa dadka ma hadal ani waa hayaa dadkaas la hadalnay dad la heli karo waaye dad ayaga rabo waaye xaqiiqatan diyaar u ah waa inay ma aragtay haddii la iskaashanayo si guud loo wada hadlayo inay ka qayb galaan dad aan ma aragtay aragtidii iyo ma aragtay kartidii wali ay ku jirto waa gabdhaha aan la hadlay aadaan ma aragtay ugu mahadcelina sida uga go'need inay helaan gabdho kale oo ayaga la mid ah ama dhibka noocaas arkay oo ay iskaashi la sameeyaan inay helaan aad u rabaan marka intii dhibka noocaas waxaan ugu baaqaynaa aragtay inaysan ka aamusin ay ka dhiidhiyaan waa dhib baaxadiisa leh bulshadeena aysan xamili karin ma xamilin gabar kale wallahi wallahi xitaa sawirey gabadhaas ila wadaagtay aniga hadda maaragtay waxa waaye ma soo bandhigay laakiin waxa ila wadaagtay nin dhaqtara oo fariin u soo diray shaqadii isbitaalka markay tagtana uu leeyahay muxuu ahaay soo bood shaqada si ay soo gasho laakiin maaragtay maanta soo bood intii soo booda xaafadii ugu ma fariimaha waa haya official waxa uu qaris ma soo bandhigay ma fahan si maaragtay laakiin dhibkaas hadaa marka aan dhaqtarkaagii kii dowladii ku jiray oo ma aragtay dowladda oo dhan wada ahaan ee shakhsiyaadka xun ee ma aragtay teetalada wax ku raadiya iyo ma aragtay kii isbitaal joogay iyo kii xafiis yar inta isku aadastay ma aragtay computer wax dhigtay hadduu qofka ku sii xujeynayo inuu qofka asaga ma aragtay gabadha walaashiisa ay soo u tureen ma xala adiga lagu tura adna runtii loo sheego yaa runta u sheegay marka adaa runta u sheegay adiga hadda ka aamus cid u sheegi karta mana gabdhihi marka dhibka ku dhacayo way arkayaan shaqo la'aan ku noqonayaan way ka aamusayaan ninkii hawliisu iska wadana ma aan waa inaad xisaabtantaa waay aniga jirkeyga ma rabtaa mise shaqaa rabtaa ma shaqaa rabtaa mise aniga jirkey sifadii u soo mara daarati u soo mar wadadii saxda ahayd ya oo wuxuu ilaahay ku qoray xalaasha واي سو مرة دجال نو دجال كان مهم هذا دجال أمس أدلة واي
ولا أمستي دلها تاس ما بري ولي لها وأدلسناني نو وأدلسناني مركنا أدلسنا تمام وحنا باخان قبل الصومالية كلا فرنت اللي سوى قبله إذا كجتمت ولكن صاحبك مناصر محمد العبدي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.